qofkan soo arka sanaag maahan oo whatsappka Daahir Cali soo ka raali gelinayo ila dhageyso. Waku salaamay saaxib, waku salaamay. Daahir seeta. yaa waaye War aniga waa arka sanaag waku salaamaya. aye maxaa ka soo doontay goosh sanaag waa loo hoosgalshay Maxay ka soo goosha doontaa sanaag lacagta? Allah Inaad soo laga qabto waa maxay? waa Dacwadda iyo loo waxa hoosgaliyay hay goosha sanaag Allah niyo bariiskayga war yunil hay tahay war bariiskayga ciideynay meesha ciid niyo noo dhexeeya labadeen niyo noo dhexeeya saaxib meesha bariiskayga ciideynay hadda ama raaligelin bixee haddaan ku raali gelinayaa saaxib hadda arbaraal lahaw ama raaligelin bixee hadda ama bixee raaligelinta qorsoo furid damayo taasi waa bahgiraada halkan aan ka raali gelinayaa public aniga iga raali geli haydiin hay oranta public iga raali geli saaxib waa bahdilaataasi raaligelin may aniga whatsapp ma rabo meesha iga socaaysi oo public ahayd ama raaligelin ka bixee bye bye saaxib raaligelin bixi maysid miya Allah hadda waa in aad live soo furataa oo aad live-ka iga raaligelisaa isna wuxuu taagayaa publica raaligeli ma karo hay ceebeen sharaf dil waaye bahdil waaye whatsappka kugu raaligelinaa raaligareys whatsapp uma baahni Allah baraad waa in aad meeshaad iga caysay iga soo raaligelisaa dadkan baqbaqeenayo oo khatarta iska dhigayo whatsappkeeba ina ka wacaanay raaligeliyaan Daahir Cali soo naga raali noqo markii oo TikTok live la yimaadana ay khatarayna iska keen dhigaan sundus ayaa la xaaladeeda intee ku dambaysaa jabra qiilqiilinayay siki Soomaaliya qiilqiilinayay waa laga tagay hay waxay u tagtay Khalid Mulle u tagtay halkoo maalin oo la qiilqiilshay kadib faraho ka qaaday masaakiintaasi gud ayay ku rideen gud inuu u qodeen ee ku aaseen dad ayaka laga ooyin sii jiray oo raaligelin bixin jiray ayay waxay u qabtay in ay wax u qaban karaan waxay iskaga dhigeen dad khatara maadaama iida aysan waxba ka ogeynin xaaladday ku sugan yihiin khataray iskaga dhigeen guday ku rideen wallahi gabadhaas miskiinta guday ku rideen